kulankan ay maanta muqdisho ku yeesheen hay'adaha gargaarka iyo guddiga masiibooyinka ee dhawaan loo magacaabay magaalada Beledweyne oo fatahaada ka sameeyay webiga Shabeelle ayaa waxaa laga hadlayay qaabka ugu fudud ee gargaar loo gaarsiin karo dadka uu saameeyay fatahaada uu magaalada Beledweyne ka sameeyay webiga Shabeelle kaasi oo geystay khasaare kala duwan. Abdullahi Goodax Barro wasiirkii hore iskaashiga iyo qorsheynta xiriirka caalamiga ahna gudoomiyaha guddiga masiibooyinka oo la hadlay warbaahinta kadib markii kulanka soo gabagaboobay ayaa waxa uu sheegay in ay ugu talagaleen dadkii uu saameeyay fatahaada webiga Shabeelle raashin iyo daawooyinkana kala imaan doono gobolada dalka qaarkood. waxa noocaas ah diyaarada lagu geyn doona dhinacan xamarna waxa ka aadi doona hadii ay beedmo raashin dhulka mari doona hadii Ilaahay yiraahdo muslimka ay ugu deeqeen sida dowladda Turkiga iyo Sacuudiga marka taasna waxay mari doonaan dhulka hadii ay beedmo aduuna way ku kalsoon yihiin inay dhulka ay masiyaan marka hadii ay beedmo dhibkii uu yaraan doonaa Ilaahay waa naga rab galay midda kale waxaan rabnaa inaan also aan xitaa aan ka wada hadalno oo aan idin sheegno in biyihii yaraanayaan oo biyihii ay hoos u degeen kol dhowna dadka biyahooda ku noqon doono taa macnaheedu maaha dadkii inaysan gargaar u baahnayn runtii biyihii markii lagu noqdo dadku waxay la kulmi doonaan waxyaalaha qaarkood way ogolyihiin annagu intaan ka warhayno hay-aduhuna ay warbixiyeen al-shabaab haddii cunada ka imaanaysa muslim u gargaaraya ay tahay waxba kama qabaan sidaan warbixinada la sheegay xukuumadahana aan ka warqabno. hay'adaha gargaarka iyo dawladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay wadeen qorshe ay gargaar ku gaarsiinayeen dadkii uu saameeyay fatahaada webiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Beledweyne.